kulanti wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo la soo baxay qorshe cusub kadib markii uu ku guul dareystay in uu taageero uga helo midowga Afrika muddo kordhintii loo sameeyay madaxweynaha dalka oo tallaabadii muddo kordhinta dusha ka saaraya gudoomiye Mursal xogo iyo warbixino ku saabsan qorshaha cusub ee madaxweyne Farmaajo ayaan idin soo gudbin doonaa ururka jaamacadda carabta oo war xasaasi ah ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee Soomaaliya xilli uu ururkaasi ku baaqay in si degdeg ah xal looga gaaro khilaafka doorashada haddaba muxuu ururka jaamacadda carabta ka yiri muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo wararkeena kalena waxaa kamid ah midowga murashaxiinta oo soo dhaweeyay go'aankii ay midowga Afrika ku cambaareeyeen muddo kordhintii loo sameeyay madaxweyne Farmaajo xilli madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif uu fariin adag u diray madaxda dawladda federaalka dawladda Imaaraadka Carabta oo hub iyo gaadiid dagaal ka dejisay magaalada Boosaaso maxay tahay ujeedada ka dambaysa arrintan maxayse dawladda federaalka kala socotaa qorshaha Imaaraadka uu ka wado deegaanada Puntland iyo madaxweynaha Galmudug oo wajahaya culays dhinaca ciidanka ah kadib markii ay dhowr garab u kala jabeen ciidankii Galmudug iyo qoorqoor oo si degdeg ah uga baxaya magaalada Muqdisho si aan looga afgambin maamulkiisa oo ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasiyiinta isku heybta yihiin ee mucaaradka qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen Jimcaha 23 bisha afraad ee Abriil sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waxaad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan nala faafiyo wararka oo gaarsiiyey saaxiibadiina idinkoo ku sheergaraynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeenna madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in iminka uu la soo baxayo qorshe kale amaba siyaasad cusub oo kale kadib markii uu ku guul dareystay inuu taageero uga helo midowga Afrika muddo kordhintii loo sameeyay xogo gaar ah oo helina ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweyne Farmaajo oo isagu qorsheynayay isla markaana filayay in midowga Afrika ay si u taageeri doonaan howlaha lagu taageerayo muddo kordhinta madaxweyne Farmaajo ay meesha ka baxday isla markaana haatan uu qorsheynayo madaxweynaha in siyaasad cusub oo kale uu isticmaalo madaxweynaha waxa la sheegay in iminka wixii ka dambeeyo uu muuqanayo mid ka tanaasulayo qorshihiisii ku saabsanaa muddo kordhintii dawladda federaalka loo sameeyay waxaana tallaabadii golaha shacabka uu muddo kordhinta 2 sano ugu sameeyay dawladdiisa uu dusha ka saaraya sida xogaha gaarka aynu ku helayno ay sheegayaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan gudoomiye Mursal ayaa iminka waxa uu wajahaya culays kaga imaanaya dhinaca madaxweyne Farmaajo haddii arrintaani ay dhabowdo isla markaana madaxweyne Farmaajo uu ka tanaasulo qorshaha ku saabsan muddo kordhinta dawladdiisa maadaama qorshihii ama rajadii ugu dambeysay madaxweyne Farmaajo uu ka lahaa in taageero caalami ah uu ku helo muddo kordhintiisa ay meesha ka baxday iyadoo midowga Afrika ay si weyn arrintaasi uga hor yimaadeen barnaamijka wararka ugu dambeeyay ee Soomaaliya qaybihiisa hore ayaynu ku guda jirnaaye ururka jaamacadda carabta ayaa waxa uu walaac ka muujiyay xaaladda Soomaaliya iyo khilaafka ka dhaxeeya dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ee ku saabsan doorashadii la filayay in ay qabsoomto sanadkan bayaan ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka inay xal siyaasadeed oo degdeg ah ka gaaraan arrinta doorashada golaha jaamacadda carabta ayaa sheegay in wadahadalka siyaasadeed uu yahay midka kaliya ee xal looga gaari karo heshiis la isku raacsan yahay oo dhexmara dhammaan saamilayda siyaasadda dalka si Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho bayaanka waxaa sidoo kale lagu sheegay in jaamacadda carabta ay garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed xilli kasta ilaa ay ka guuleysanayaan caqabadaha haatan jira ee dib u dhiska hay'adaha dawliga ah waxayna jaamacadda carabta sheegtay in ay iyadu ka mid noqon doonto dawladaha ururada sida weyn u taageero Soomaaliya waxa ayna intaas ku dartay inay laga maarmaan tahay ilaalinta midnimada qaranka xasiloonida iyo soo kabashada guud ee Soomaaliya ayaa waxa haatan ka taagan khilaaf siyaasadeed oo ku saabsan doorashada maadaama dawladda hadda taliso uu waqtigeedu ku ekaa 8 February ilaa haddana ma jirto doorasho heshiis lagu yahay oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo waliba uu gudoonka baarlamaanka soo saaray sharci u ogolaanaya muddo kordhin 2 sano ah isniintii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyay in Afrika
waa midowda Afrika uu door hogaamineed ka qaato fududeynta geedi socodka doorashooyinka oo awood u siinaya muwaadin kasta in uu ku doorto wakiilada iyada oo loo marayo doorashooyin xor iyo xalaal ah, balse midowda Afrika ayaa xalaytu isagu arrintaasi si weyn uga hor yimid. waxa uuna soo saaray war-saxaafadeed uu ku cambaareynayo muddo kordhinta loo sameeyay dowladda Soomaaliya. dhinaca kale midowda murashaxiinta mucaaradka ah ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go'aankii golaha nabadda iyo ammaanka ee midowda Afrika ay ku cambaareeyeen tallaabadii golaha shacabka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha midowda murashaxiinta ayaa si weyn u soo dhaweeyay baaqii midowda Afrika ee xaaladda Soomaaliya, isagoona ka digay tallaabooyinka qallafsan ee dowladdu ay iminka ku dhaqaaqayso. Sheekh Shariif ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku socoto meel halis ah, isla markaana ay tahay in la kala badbaadiyo inta uusan god mugdi ah ku dhicin xalka gaarista xiisadda siyaasadeed ee dalka oo ka sii dartay tan iyo markii uu golaha shacabka meel mariyay muddo kordhin uu ku tilmaamay in ay tahay sharci darro. waxaan codkaygu ku biirinayaa taageerada baaqa golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kan golaha amniga ee midowda Afrika iyo baaqyada isxigxiga ee saaxiibada Soomaaliya ee caalamka oo ay si wada jir ah ugu cambaareeyeen muddo kordhinta sharci darrada ah oo in yar oo ka mid ah golaha shacabka ay sifaan waafaqsaneen shuruucda dalka u go'aamiyeen, ayuu yiri Sheekh Shariif. sidoo kale waxa uu mar kale ku celiyay in Soomaaliya aysan qaadi karin xilli kordhin oo ay tahay in heshiiskii Sebtembar 2020 uu yahay dariiqa kaliya ee looga badbaadin karo dalka inuu galo fawdo iyo amni darro caqabad ku ah xasiloonida Soomaaliya iyo tan gobolka. madaxweynihii hore ee dalka waxa uu ka digay in madaxda ee dowladda federaalka ay dhagaha ka fureystaan baaqyada beesha caalamka, kuwaasi oo looga baaqsanayo qalalaaso siyaasadeed oo dalka ka dhaca, isla markaana aan la aqbali karin in la dumiyo dowladnimada aan cagaha badan ku taagnayn ee meesha fog laga keenay, sida uu tilmaamay. hadalka ka soo baxay ee midowda murashaxiinta ayaa wuxuu ku soo aadayaa iyadoo beesha caalamka oo ay ugu dambeysay midowda Afrika ay si weyn uga hortimid qorshihii muddo kordhinta ahaa ee loo sameeyay dowladda uu hogaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waa xagaag weli warqad TV ayaad nagala socotaan. imikana dowladda Imaaraadka Carabta ayaa Puntland ugu deeqday gaadiid kuwa dagaalka ah oo toddobaadkan laga soo dejiyay magaalada Boosaaso, sida ilwareedyo muhiim ah ay inoo xaqiijiyeen. gaadiidkan dagaal ayaa gaaraya ilaa iyo 30, waxaana la sheegay inay yihiin nooca cabdibilaha ay Soomaalida u taqaan ee lagu rakibo hubka culus, sida aan xogta ku helnay. maamulka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xoojinaya awoodda ciidamada Puntland xilli laga cabsi qabo in haddii madaxweyne Farmaajo ay u meel marto 2 sano ee muddo kororsiga ah uu dagaal ku qaadayo Puntland. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo taabacsan madaxweyne Farmaajo ayaa horey ugu hanjabay in ay qabsanayaan Puntland. dowladaha Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxaa ka dhaxeeya loolan siyaasadeed oo ka socda, iyaga oo kala taageeraya dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira. Qatar ayaa hadda ah dowladda bixinaysa lacagta madaxweyne Farmaajo adeegsanayo ololihiisa, taasi oo laluush ahaan loo siiyo guddoonka golaha shacabka, xildhibaanada iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka ee laga cabsida qabo inay ka soo horjeestaan muddo kororsiga si loogu aamusiyo. dowladda Qatar waxaa taas u sii dheer in lagu eedeeyo in ay xiriir iyo wada shaqayn la leedahay kooxaha argagixisada Soomaaliya, kaalin ay ka qaadato Qatar qaar ka mid ah falalka argagixiso, inkastoo arrimahaasi oo dhan ay beenisay dowladda Qatar. sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday New York Times, waxaa la sheegay in dowladda Qatar ay iyadu kaalmo dhaqaale u soo marsiiso madaxweyne Farmaajo taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin, inkastoo arrintaasi ay si weyn u beenisay. dowladda Qatar oo iyadu warqad soo dirtay ku sheegtay in aysan haba yaraatee jirin wax laaluusha oo ay siiso madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ayaa wajahaya culays dhinaca ciidamada ah kadib markii la sheegay in ciidamadiisii uu hogaaminayay ay u kala jabeen ilaa iyo dhowr garab. ciidamadan ayaa la sheegay in haatan ay u kala jabeen qaab qabiil oo markaas ay ka soo horjeesteen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor. xogo gaar ah oo ka helnay ilo ku dhadhow madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Axmed Cabdikaari Qoorqoor uu qorsheynayo inuu si degdeg ah ugu laabto deegaanada maamulkiisa, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, si aan afgambi loogu sameynin Qoorqoor, maadaama ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ay isku heybta yihiin.
madaxweynaha ayaa la sheegay in maalmaha soo socda uu halkaasi gaari doono haddii aysan wax isbedelin. ciidamadan ayaana la sheegay in ay qaarkood gadoodeen, qaarkood qaab qabiil ay ula hadleen dadka mucaaradka ah ee sida weyn uga soo horjeeda maamulka uu hogaamiyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, iyaga oo ku eedeynaya in uu ka baxay garabkoodii iyo guud ahaan dadkii siyaasadda uu ku matalayay oo ay ula jeedaan beesha uu ka dhashay. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo.